madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa maanta shir gudoomiye shirka khamiislaha golaha wasiirada maamulkaasi oo toddobaad walba looga hadla xaaladaha ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyadoona maanta warbixino kala duwan looga dhageystay wasaaradaha kale ah arrimaha amniga, arrimaha gudaha, howlaha guud, waxbarashada, ciyaaraha iyo midda dekedaha. ugu horeyn wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda amni ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo howlgaladii ugu dambeeyay ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ee fariisinka ku leh duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. waxaana sidoo kale uu xusay wasiirka in howlgalka ay sameeyeen ciidamada xoog ay ku soo qabteen hub sidoo kalena ay khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen al-shabaab. wasiirka amniga ayaa sidoo kale amaanay ciidamada amniga magaalada Baydhabo oo sida hufan ay uga hortageen qarax xalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, kaasna uu sheegay in ciidamadu ay ka hortageen isla markaana ay fashiliyeen. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, dekedaha, howlaha guud ayaa sidoo kale warbixin ka siiyay waxyaabihii uu qabsoomay. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa golaha wasiirada ku bogaadiyay howlaha shaqo ay u hayeen shacabka reer koonfur galbeed, waxaana uu ku dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan sidii looga meredhelin lahaa himilooyinka ay hiigsan doonaan shacabka reer koonfur galbeed. warmurtiyeedka laga soo saaray kulankaas ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جيجا أو تاريخ ذا التلابات إلا ماذا بالله من عاد لماذا إيو اللباتن كسيد عادة هاي توي باب النسكوي شركي قلوا وزير الدولة قلت كفر قلب الصوماليا أو جيك استو خميس نسكوي جري شركة سولين كدوه بيرهنتي وربحنا إيدي إن شاء الله قد يسمع أقو سيد ديجانا ذا كفر قلب الصوماليا وي باب وربحين قد لكدوه سدي وزارة وزير كأمنية دولة قلت كفر قلب الصوماليا نساخ على السبق ساسات وي باور بحين قد لكدوه سدي وزير كوزارة أرمها جودها أو رنتي كدوه بي حالدو جود إدغموين كفر قلب الصوماليا ساسات وي باور بحين لكدوه سدي وزير كوزارة والبرشدة دولة قلت كفر قلب الصوماليا أو سكدوه بسديد بلاد أن قدم بيتي والقبط كوزارة وربحين جود يا ساسات وي بالكدوه سدي وزير كهولها جود إيو ديبوليسك دولة قلت كفر قلب الصوماليا warbixin guud yaa wayba ku dhuunsaday wasiirka wasaaradaha dekedaha saasaata wayba warbixin guud ku dhuunsaday wasiirka wasaaradda isboortiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. marka hore wasiir Isaaq Cali Subag yaa wayba ku dahoway xaalado guud ee amniga deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo meel raay saada isbuuci la dhaafi intiyo badan isku deganayeen oo meel raay saada xusi lama maalmood ka hor howlgal oo AD8 runtii fayl hayeen oo iyo fuliyeen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kaaladaw ciidamada AMISOM oo aan soo ku fuliyeen dowladka degmada Diinsoor. howlgalkaasi oo hay runtii howlgal la ka weerari kooxda nabadiidka nololay nabadiidka ee al-shabaab oo meel raayus jab AD8 wing meelas la ka dersi iyo meel raayus la ku dili tira maleeshiyaad oo deerayaan tuman ku badan runtii ilaa 10 qofood camal ku dili shirka golaha wasiirada oo ka horeeyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo golaha wasiirada way bogaadiyeen runtii howlgalkaasi waan ka amaaneen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya runtii oo talaabada iyo qaadeen ilka micnay runtii inay talaabo geesinimo leh taasoo meel raayo saad ciidanka la ka dhiirigeliyay inay howlo amniga ka saabsan si dardar geliyaan runtii golaha wasiiradana AD8 linka bogaadi waana linka amaani saasaatow